السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي إذا سيتهين waxaa dhacay taqriiban 2 maalin ka hor fiidiyowga waxaa jiray aan sanadkii hore soo geliyay marka halkan TikTok-da uu ku soo xasuusinayaa fa fiidiyowga marka wuxuu ahaa hadal uu dawladii hore Siyaad Barre uu la hadlayay Soviet iyo Ethiopian iyo dadkaas iyo uu hanjabay xataa Westernka ama qarbiga especially dagaaladii 70-nadii yani inta la gelin iyo buu u hanjabay oo si powerful u hadlay fa markaan arkay halka social video soo xasuusinaysa ina aan soo share garay sanadkood waxa ku yiri why not yani mar kale soo share garay waxyaalaha marka aan la yaabay waxa weeye inuu awal shay حتى waxaa ku jirta fiidiyowga dabaaldeg ama markii askartu isku soo baxeen Soomaalida ah oo kulligood oo dhan ay tusayeen cadawga powerful ka Soomaaliya waagaas barri baxri jawi kullu askartu oo dhan militariga oo dhan soo baxay fa waxa jira dad مثلا for example يعني طبعا كومنتيada haddaad gashaan here in TikTok أنا طبعا حتى مع meelaha accountooyinkii kale oo storyada aan geliyay طبعا dad baa marka waxaa jira 100% la safan dawladii hore Siyaad Barre dadna waxaa jira 100% against ka ah dadna waxaa jira aslanba yani marxalad waxay gaareen aniga personal attack inay sameeyaan yiraahdaan adigu qof dictator faaninaysa taariikh u yeelaysa all these things okay horta number 1 aniga as Xanaan channel أنا تاريخ ضلنا وصوبا لجا سواء before Islam after Islam إلى تاريخ معاصر كحوي modern history جاء especially مركز لقب لابو قرن هوري قرن شو طبعا إلى last تضباطك السنة وبقولك سنة بدن بي وإسكا وإحنا نقول تاريخ معاصر فكورن تاريخ ترتي كنتم أما 20 أما 60 سنة كريه جرتي مثلا أما حتى 40 سنة كهر فأنك كشعب عاطفي يعني هاي وحي ربان بس انت ربان اني دغيستان انت كلان اني دغيسن ضد بدن ادونكا سو مري با جرا ليدرada خلط iyo saxba way sameeyaan مع كذا تاريخيا wala barta يعني هتلر او يوروب oo dhan aakhira u diray مع كذا jarmal taariikhis way barta buugiisa ugu caansan okay أسوق عربي يعني إن بان كأخرية كفاحي اللي يراهدو حتى يوتيوب كترتا أيضا للجيستو كان عدها أو بيسك سياسة إيه ملتري قال لقبرتا فيري واسوق دكتاتور ليش لأنه وحياله بوزيتيف بدن واحد تريكاز لقبرتي فاللي بعتذر جرت وحاوي حتى مركز تاريخ الصومالي معاصر كأركتيد qofkii liidarka ugu cimri dheeraa xukumay min sidii u dhacday saltanooyinka dhexda ka baxday boqortooyinkan ka baxnay oo aan helnay hadhow xukum ama dimuqraadi ama shiyuuci whatever yani xukum siyaasi la xadina 22 sano حتى nin 10 sano fadhiyay ma jirto asaga 22 sano ya ka badan buu fadhiyay okay taariikhdaas oo dhan hadda tiraahdid ma jirto ma dafirto especially hadda tahay new generation يعني ضدك أو تاريخ الصورن بوحكي أوجين يعني ضدكنا واجس متشرين أما ما ضلان أما عقلي بما بلاهين با أوكي فالتاريخ ذو وحلا برتا صاحب يال بوزيتيف كيس نيجاتيف كيس عشان سوي قاعد هالكي أسرعتها ما إنا emotional نقطة تجراديد ما والله قف كان سان وسمية أوكي يعني مستحيل كمان يعني أنا هذا وحيالها أو قصر كواحوي إنه مركز مثلا يوتيوب كلا أما عن مقلو waxyaalo min zamaan oo ku hadli jiray surprise bay ugu noqotay inuu macquula waxa jiray leader siyaas oo powerful oo saas u hadli kara because anaku yani ma arkin ilaa hadda qof powerful siyaasadaha banaanka milihin okay uga waxaan nahay yani waan cusubnahay wali lugahan ku kacayna from burburka qof u hanjabaya Mareykan iyo Europe iyo heerahaas iyo Soomaalida hadda carabta xataa uma hanjabi karto uma hanjabi karto xataa Afrika what are you talking about يعني فأديك as a Somali hadda tahay yeel ama diid waa جزء من تاريخ هذا كم tahay inuu nin انقلاب ku qaatay
xukumay Soomaaliya على فكرة واجاس هداد أركتان وحياله هربر بدن بجمع تعليم توكل كربة إهد Soomaaliya جائزة يونسكو بالسية والضمط بدن وعربيت بهالو حيرادين بليز وحربنا تجربة السنة نبرتان سيدا العراق وكلا سيدا وضماء عرب وربا ويرتي بروفيشنال الصومالية وزارة التعليم لحرتي سيدا يقوغادان صوماليو يعني محو الأمية يعني قفك جاهل كصوماليا أما وح آخرين كرين وحي نقطي صوماليا بقولكي لابو مش عك صوماليا بقولكي لابو بدن كودنا وحي أهين dadkaas ka weyn 78 okay militariga ugu xoog badan buu Afrika ku jiray Soomaaliya waagaas Soomaaliya daway samaysan jirtay Soomaaliya warshaday leed wax soo saarta banaanka wuxuu dhoofin jirtay cuntooyinka basic ah lacagtiisa way yareed sida midna daqiiqda bariiska baastada leesh aan wadanka dhexdiisa baa lagu sameyn jiray okay khudaarta fruitka all these things فأديك مثلا as a قف صومالية مثلا تعطي واجي سياد برا واجي سوتشوي كدبة وحيال بدن بعضعي وحيال بدن وحجة تاريخيا إلى حتى أنك كمور قبله أما مركز أوجاتد يعني وقت بيكون قانسا إنا فهمتين الدون كان مرول با حتى مركز عن أخرية تاريخ السلطنوين كمثلا السلطنة العثمانية وكلا عثمانية وكلا liidare waxaa jirtay oo hadda ka hor aakhire isku diray iyagoo walaalo ah adu qabiil baba ka hadlaysa dad isla dhashay yani waxaa jirtay naag sultaanada magaceeda waxa jirtay sultaana Maryam naagtaas waxay sameysay wiilkeeda baa waxa la dhashay 19 amiira odaygeeda markuu dhintay sultaanka ah Uthmaniga ah ayada wiilkeedii oo carshigu dabcan lagu fariisiyay wuuna yaraa 19 أمير آخره أدرتي هالطفير أيضا مرة آية وأهيد علشان حكم كروير كوكو قبصا وحيالها وحوي حتى تاريخين إلا هذا لبرتو إسلامتا سلمور دين I think 6 سنة وحاس يدو حكومة جرتي تركي وفريدي طبعا حكومة الظلوية هو صوص بيك حكومتها يعني وزراء دي الدولة دي بيك عنتا كوهيسا لكن كروة السلطان فهمتي سلطانة كلا واحد جرتي أيضا اللي أورنجري كسن إذا كدب كتيمد أيضا وأهيد صده سبحان الله إذا كتخلص يسي إنت أنت سلطانة داس حتى وحي سبيسي ويلي لشيء بيت الشيء ويلي لشيء ويلي مركة أيهو أهيد أيضا آخر أقدر الله أيضا إسلام أهيد بعلاقة قبتو أيضا نوال الدلي لكن تبي كفر دي موردين أفرت الصرو بسلطانة عثمانية كفر دي فيروا وحي لشيء يعني هرتا الحمد لله ده إلهي وحيانا لقعد بالاستحوى الله من عذبك من فتنة السلطة qofku markuu powerful helo ama meel sare gaaro tara fikna fitna ku dhacda fa adiga mesela hada qof caadiga tahay ama madaniya ama qof iska yani caamati shacab waxyaalaha soo kale kuma dhacayaan laanu marxalad waxa gaaraysa waxa laga yaabaa hatta ilmahaga inaad dishid ama hatta aabaha inaad dishid way dhacda taariikhda mucaasirka waxa jirta niman badan oo aabayaasha inqilaab ku sameeyay oo aabahood rabay inay dilaan qaarna way dileen فهذا الشعب يقبيل بابا كعليسا ضدك يقصك يوحي للاي بوبا كتخلص يا يوحي للاي اوكي صاحب يال تاريخ ذينا عن برنو بدون ايموشنال حتى هدي دباتوين عضي حتى هدي واحد عضي وإن الأوغانا وقتيغاس زمانيغا حساسكا Soomaaliya maxaa ku dhacay economy ahaan culture ahaan xagga diiniga xagga magaciisa anigana as a channel hada waxyaalo soo bandhigo khasab ma aha anigu مثلا inaan la jiro مثلا xukunka sultanaadka ama inaan la jiro xukunka askariga ama inaan la jiro xukunka dimuqraatiga ama hatta xukunka maanta federaal khasab ma inaan la jiro laakiin waa wax in la soo bandhigo oo la barto عشان sida mustaqbalka u ogaan halkay u soconaa laakiin halkan waxaan la dhigay because waxaad garanayna male taariikhdeena ma garanayno siyaasiyiinteena ma garanayno niman min zaman xukuumay ma joogi jiray ba waxa dad baa ilaa hadda daraawiishto oo waxa laga yaabo 100 sano ka hor ka badan joogay dad baa ilaa hadda waxa arkaysa ataaku ama caynaya kaanu waagas xataa woogis ma jirin fa is very sensitive marka saaxiib yaa la istijiyo emotional laga baxo عرفت حتى التاريخ لا يرحم يعني تاريخ ذو نحريس مره سورينا هنا كل راضي حوش الله الصعيدة